بسم الله الرحمن الرحيم maanta بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan rabaa inaan بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan rabaa inaan warbixin yar oo kooban oo ku saabsan bariga Sanaag iyo gobolka Badhan halka ka bixiyo deegaankaas bariga Sanaag iyo gobolka Badhan aad buu degan yahay wax dhibaato kama jiraan wax xaalad kama jirto aad ayaa deegaankaas u fiican yahay u degan yahay xaaladda dhinaca maartay ecological conditionska iyadana maartay dhulku waa rooban yahay waa barwaaqo wax dhibaato iyadana ka jira ma jiraan xogaha maalmahan waxay dadku yar hadal hayaan hadba askari yar oo darajo hoose leh oo meel yar joogayo shaqadii ka tagay taas wax macna leh ma qiimo ma leh askarigu sidiisa influence kuma laha ama taasiir kuma laha siyaasadda dawladda waan askariga meel jooga marka askarigu hadduu iska tago dhaqan ahaan waxa weeye ama uu dhinto ama uu is-casilo isagu ama shaqada ka tago dee waan askari kale in lagu bedelo oo askari kaloo fiican boqolaal askari kale oo wanaagsan baa jira haddii doonaan isaga ka fiican marka qaanuuniyan waa in dimeeshii askari kale in la geeyo isagu iska tegay isaga ayaa hadda dhib ku noqonaysa sidii uu shaqo ku heli lahaa ay ku adkaanaysaa halka aniga waxa igu yimaada maalin kasta dad fara badan oo deegaamadaas oo shaqadooda si fudud uga tagay si kasta xaalad kasta kaga tagay oo iminka jecel maartay mar walba ay qalqaalo sidii shaqadooda dib ugu noqon lahaayeen aniga shaqadiisa iska sii daaya dadka shaqada doonaya maanta aad buu fara badan yahay dadku waxbay barteen tacliin bay yeesheen dhalinyaro fara badan baa soo kacday ninka shaqadiisa iska sii daaya xogaha dhow bay ku adkaanaysaa siduu shaqo ku helo askari qiimo ma leh dhowrka askari si kastaba ahaatee askartii way ka hadhay ma raacin waa joogaan askartu dantooda waa taqaanaa xiriiroodii bay joogaan oo ku sugan yihiin wax dhibaato oo ka jira ma jiraan kuwii hore u tagay waxay la soo hadlay ciidamadii qaar la socday iyaga waxay igu yiraahdeen way iga codsadeen in maartay dawladda afis loo weydiiyo ma fahanti marka ciidana ma tagtee kii shaqadan ka tagay deegaankii buu joogaa deegaanka looma gudbo meelo kale ma tago eriyadii buu iska jooga oo iska warwareega taas wax qiimo ma leh dadku waxaan u sheegayaa shacabweynaha Somaliland waxaan u sheegayaa dee askari shaqo ka tagay inay wax qiimo lahayn mar haddaanu shida kugu hayn mar haddaanu kula dagaalamayn mar haddaanu maartay dhufays ku soo gelin dee shaqadiisa isagu iska tagay waxa weeye in askari kale oo wanaagsan oo shaqadii wada oo shaqo fiican qabta in lagu bedelo ma jirto dee askar tagtay intaan lagu ogahay waxa ilaa hadda ogahay laba askari miyaa mise waa saddex way ka khaldan yihiin tiraankaas la sheegaya in shaqada ka tagay askariga janana shaqada ka tagi kara ama sanadkayga ya dee dawladdu way haysataa ciidamo fara badan saraakiil fara badan dadkeeni baad moodaa inay fahamsaneen maartay ta aad fahamsaneen ta dadku ka qancinaya wax ka jira ma jiraan yaan la buunbuunin cida buunbuuninaysa waa adan haddii buunbuunisaba dee wax dan gaara leh iyagu waa shakhsiyaad dan gaara iskale ma jiraan beela Somaliland ka soo horjeeda oo deegaankaas ma jiraan hogaamiye dhaqameed ku dhawaaqay inay deegaankaas ka soo horjeedaan Somaliland ilaa 91 lama hayo ma jiraan cid saxaafad ka hadashay ama beel ha noqoto ama hogaamiye dhaqameed ha noqoto dadka midela waa dadkaas weey dadka deegaanka midela dadkaas weey oo hogaamiye dhaqameeda marka totally ma jirto cid haba yaraatee kalsooni darro ka muujisay ilaa 91kii dawladda ama maamulka kuwii hore iyo kuwa hadda uu madaxweyne Muuse Garoodeenka ka yahay dawladda Jamhuuriyadda Somaliland cid kalsooni darro ka muujisay oo deegaankaasi totally ma jirto idinka waa suxufiyiintii bal soo saara oo sheega oo waxaad ran beeshaas hadashay اسم كاسا هادلي ما جرتو
sidaas waxay ku tusaysaa dadka deegaanka Sanaag bari iyo gobolka Badhan inay ku qanacsan yihiin dawladooda Jamhuuriyadda Somaliland qodobka labaad xagga wax qaybsiga dawlad been xilliga cigaal dhowr dawladood baa ka dambeeyay tii daahiriyaha ka dambeysay tii Axmed Maxamed Siilaan yaa ka dambeysay tan mudane Muuse Bixi baa ka dambaysa xilliyada dawladdu marba taqadim bay gaaraysa marba isbedel horumarineed baynu sameeyeen maanta heerkeenu joogno waad arkaysaa waxaanu u dhisanahay sida dawladaha caalamka ayaynu u dhisanahay hal loo inaga dhimin ma jiraan waxaanu u gudubnay habka multi party systemka habka xisaabta badan doorasho la galay hadda waxa weey iyo wixii ka dambeeya shacabka Sanaag bari iyo gobolka Badhan waxay diyaar u yihiin inay intikhabaadka ka qayb qaataan inay kuraasidooda codkooda kula soo baxaan iyaga la soo baxay waxa diyad loo siiyay ma jirto cid wax qalqaalanayso qalqaalo ugu dhimsan ma jirto cid ku campaign gareynaysa ma jirto waxba idin doonaya ma jirto iyaga la soo baxay diyaar buu taasina waa taawi sida daraadeed deegaankaasi maanta aad iyo aad buu hagaagsan yahay aad iyo aad buu fiican yahay wax dhibaato kama jiraan aad buu maasantii deegaanka xilku oo ka tirsan degmada Badhan sidoo kale keenay dhawaan ciidamada ka goostay oo sheegay in ay ku bireen maamulka Puntland horena ciidanka xagga Puntland u talaabay oo iyaguna sheegay in Somaliland ka goosteen sidoo kale waxa jira in calanka Somaliland leeyahay ka taagnaa shaashadaha kamarada laga arkay iyadoo la dejinayo in calanka Somaliland la dejiyay oo hoos loo dhigay adigu wali arkaas kuma soo gaarnaya هذا كاس وفوتوشوب وحكي جرا ما جرا waxaan ay maanta internetyada iyo dhalinyarada ku isticmaashay calanka Puntland wadanka bariga Sanaag iyo gobolka Badhan waa taqaaniin meel ka taagay weligiin ma aragteen cid sidata oo mudaharaad sameynaysa oo la warwareegaysa oo hadiyo jara la wada tan miyaad aragteen ma jira wax ka jira ma jira waxa weeyaan adeer dadkan leey waa goosteen askariga waa taqaanaa haduu meesha iskaga raaco oo laga bedeli waayo oo dawladda joogo 20 sano dhowr iyo 20 sano waa caajisaya waxa dhici karta noloshiisa inuu wax ka bedelo waxa laga yaabaa marka inuu iskaga tago askarinimadooda shaqo kala doon adana kale shaqo kala doonteen waliba meesha ku raagay oo daalay oo ku caajisay way soo muddo dheer joogo laga bedeli waayo waxaan qabaa sida dadka waqtiga dheer in la kala bedelo oo dhalinyaro fara badan oo shaqo diyaar oo ciidanka diyaar oo ay joogtay kuwa lagu bedelaan waa amsan ساعات يصير خليال بدن بaa sida uriyaha horna uu sheegay Goostay oo idinka walaalka idin qaadisana ciidamada la socday isla magaalada Badhan iyo magaalooyinka kale gudahooda lagu soo bandhigo wasiiradii Puntland iyo xildhibaanadooda ay ku soo dhaweeyeen ma waxaad leedahay kuwaas ayaa wax matarayaal markii hore ahaa adeer waxa weeye nimankan aad sheegayso waa nimankan ku sheegay hadii waa dhowr shakhsi waa niman gaboobay oo waayeel noqday caajisay oo shaqada iskaga tagay weeyaan oo rag waaweyn weeyo dawladda siyaad barabay ka ahaan jireen beebadad waaweyn ahay xilliyadaas ay rag waaweyn ahay ragaas waa rag waaweyn oo iska caajisay oo iska dhowr qof badan 100 qof ba joogtay wali dad shacab tumayo oo u hanbaliyeynaya ma aragteen xagee joogan ya maanta waxa weeye nimanka sheegayso meel ku sugan lahayd bariga Sanaag bay wali joogan sidii bariga Sanaag bay joogan gobolka Badhan bay joogan barigiisa shishe bay meelahaas ay tuulooyinkaas ku gagabadaan waxa weeye way og yihiin xaggaan waxba uma yaalaan systemka xaggaan waxba uma yaalaan waa dhowr shakhsi 2-3 baan ku iri shakhsi oo iska caajisay ku raagay shaqada oo iska tagay hadeeraan ku leeyahay askarigu wuu iska tagi karaa laakiin askari kale lagu bedelay imisa askar joogta kumanaan askar baa joogta imisa diyaar inay askar noqdaan ma oran karo askarigu kama tagi karo shaqada weligii allihii kama tagi karo ma oran karo weligii allihii ceel buu ha fadhiyo ma oran karo ceel buu wadarkiisa waa daawanaysa ciidankii ceel buu joogay dawladdu iskay sameeyeen siday mowqifkooda u cadeeyeen odayaashii waa arkaysay ceel buu weligeed Puntland ma noqon weligeed mushaar Puntland laga ma qaadan fahanta deegaanadaasna waa la mid ساعات يصير ciidamada taliyaasha goosanaya iyo maamulkii gobolka Sanaag oo isna hore u sheegay in Puntland ugu biiray waxay
bilaabeen intii aad xilka wasiirka haysay ma isleedahay adiga iyo deegaanka aad ka soo jeedo ayaan si fiican isugu xidhnayn oo taasaa keenaysay in Puntland marka wax u goostaa may anigu marka hore askarta ma xukumaano waxaan waa niman askar ah markaan marka hore shakhsiyan askarta ma xukumo askarta waxay ka tirsan yihiin ciidanka qaranka Somaliland ay ka tirsan yihiin sidaana maaha deegaanka markhaanti baad ka tahay anigu 2 bilood joogay aan tagay sidii liiga soo dhaweeyay wadarkiis ilaa baran baan socday oo loo haystay lama galaan tuulo kasta waan soo maray meel walba soo tagay sidii liiga soo dhaweeyay wadarkiis waa la socotay saaxiib waxna iska bedeleen waad garan kartaa nin waqti yar joogay sida talaabooyin ku qaado talaabooyinka ku xidhay aan qaaday waxa ka mid ah mashaariicda maanta ka socda bariga Sanaag 9 magaalo ama 9 deegaan ayaa waxa ka socda mashaariicdii oo si sax ah u socda aan dhuumasho lahayn oo adigoo suxufi aad la socotay meel walba ka soo diisan TV-da ka soo diisan jaraadka ku qorta marka waxa weeye ma jiro xiriir darre aniga iyo bulshadayda laakiin waa iska jirtaa gacan togaalen yar oo ay taageerayaan qolada xaggaasi Puntland taasina waxa weyn wax ka bedeli karaya maaha askari yar oo maaragtay isagu shaqada ka taga oo ama influence gareeyeen iyagu xiriir la sameeyo masoo iska tago